markaasuu wuxuu u yeeray 12 xirtiisa ahaa oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo wasaq leh ku saaraan oo ay bogto walba iyo cudur walba ku bogsiiyeen. 12 rasuul magacyadoodu waa kuwan: kan ugu horreeya waa Simon, kan Butros la oran jiray, iyo walaalkiis Andros, iyo Yacquub iyo Sabadi, iyo walaalkiis Yohana, iyo Filibos, iyo Bartolomeos, iyo Tamos, iyo Matayos oo cashuur qaadaha ahaa, iyo Yacquub ina Alfayos, iyo Tadayos, iyo Simon reer Kaana, iyo Yudas Iskariyot kii gacangeliyey. 12kan Ciise ayaa diray oo amray isagoo leh: jid ka mid ah jidadka dadka aan yuhuudda ahayn ha marina, magaalo ka mid ah magaalooyinka reer Samaariyana ha gelina, laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga Israa'iil ah, oo intaad socotaan wacdiya oo waxaad ku tidhaahdaan boqortooyadii jannadu waa dhowdahay, kuwa bukana bogsiiya, kuwa dhintayna sara kiciya, kuwa baraska lehna nadiifiya, jinniyadana saara, hadiyad ahaan baad ku hesheen ee hadiyad ahaan ku siiya, dahab ama lacag ama naxaas kiishadihiina ha ku hayasanina, qaandina jidka ha u qaadanina, ama 2 khamiis ama kabo ama ul, waayo shaqaaluhu cuntadiisa ayuu istaahilaa. magaalo alla magaaladaad gashaan iyo tuulaba ka doona mid istaahila oo halkaas jooga ilaa aad ka tegaysaan. goortaad guriga gelaysaan nabdaadiya, oo hadduu guriga istaahilo nabaaddiino ha ku soo degto, laakiin haddaanu istaahilin nabaaddiino ha idinku soo noqoto. oo ku alla kii aan idin soo dhowayn oo aan hadalladiina maqlin goortaad gurigaas ama magaaladaas ka baxaysaan, siigada cagihiinna ka dhabaandhaba. runtii waxaan idinku leeyahay, maalinta xisaabta Sodom iyo Gomorra waa ka xisaab fududaan doonaan magaaladaas. waxaan idiin dirayaa sidii idawyay ku dhex jira, sidaa darteed caqli u lahaada sida abeesooyin oo u sir la'aada sida qooleeyo. laakiin dadka iska jira, waayo waxay idiin dhiibi doonaan shirar oo sunagoogyadooda ayay idinku karbaashi doonaan, oo waxaa aawaday laydin horgayn doonaa taliyayaal iyo boqoro inay mara ku noqoto iyaga iyo dadka aan yuhuudi ahayn. laakiin goortay idin gacan geliyeen ha ka warwarina sidaad u hadli doontaan ama waxaad ku hadli doontaan, waayo waxaad ku hadli doontaan ayaa saacaddaas laydin siin doonaa. waayo ma aha idinka kuwa hadlayaa, laakiin waa ruuxa aabbihiin kan idinka dhex hadlayaa. walaal baa walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo, aabbana wiilkiisa, carruurna waalidkood ayay ku kici doonaan oo dhimashay gaadhsiin doonaan. dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin nebcaan doona, laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona. laakiin goortay magaaladan idinku silciyaan tan kale u carara, waayo runtii waxaan idinku leeyahay magaalooyinka Israa'iil ma wada gaadhi doontaan ilaa wiilka aadanuhu yimaado. qof xer ahu macallinkiisa kama sareeyo, addoonkuna sayidkiisa kama sareeyo. waa ku filan tahay qof xer ah inuu noqdo sida macallinkiisa, addoonkuna sida sayidkiisa. hadday odayga reerka bilisabuul ugu yeedhaan, intee ka badan ayay ugu yeedhi doonaan kuwa gurigiisa jooga. sidaa darteed ha ka baqina, waayo wax daboolan ma jiro oo aan soo muuqan doonin, wax qarsoonna ma jiro oo aan la garan doonin. waxaan gudcurka idinku sheego iftiinka ku dhaha, oo waxaad dhegta ka maqashaanna guryaha dushooda kaga dhawaaqa. ha ka baqina kuwa jidhka dila, laakiin aan karin inay nafta dilaan. waxaadse ka baqdaan kan jahannamada ku halayn kara nafta iyo jidhkaba. 2 shimbirood miyaan beesadaa lagu iibin? middoodna dhulka ku dhici mayso amarka aabbihiin la'aantiis. timaha madaxiinna oo dhan waa tirsan yihiin. sidaa darteed ha baqina, waad ka qiimo badan tihiin shimbiro badan. sidaa darteed mid walba oo igu qirta dadka hortiisa
anna waan ku qiran doonaa aabbahayga jannada ku jira hortiisa laakiin ku alla kii igu diida dadka hortiisa anna waan ku diidi doonaa aabbahayga jannada ku jira hortiisa ha u malaynina inaan u imid inaan nabad dhulka u keeno uma aan iman inaan nabad keeno laakiin inaan sayf keeno waxaanse u imid inaan nin cadow kaga dhigo aabbihiis gabadha hooyadeed naagna soodohdeed nin cadowgiis waa dadka gurigiisa kan aabbihiis iyo hooyadiis iga jecel ima istaahilo oo kan wiilkiisa iyo gabadhiisa iga jecel ima istaahilo kan aan isku talaabtiisa soo qaadan oo aan isoo raacin ima istaahilo kan naftiisa helaa waa lumin doonaa oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa kan idiin aqbalaa wuu i aqbalaa kan i aqbalaana wuxuu aqbalaa kan isoo diray kan nebi ku aqbalaa nebi magiciis wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis kan qof xaq ah ku aqbala qof xaq ah magiciis wuxuu heli doonaa qof xaq ah abaalkiis ku alla kii kuwan yaryar koob biyo qabow oo keliya ku siiya qof xer ah magiciis runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisu ka lumi maayoba